Bismillahi Raxmaani Raxiim. Walaalayaal saan la wada socono dalka Congo waa dal aad u weyn. Marka saacadihii lasoo dhaafay waxaa ku dhimatay 50 qof oo cunay shimbiro. Cudur baan ka dilaacay cusub oo shimbiraha ka qaadan oo la yiraahdo mystery. Dad badanna boqolaal gaarayaan waxaa lala tacaalayaa caafimaadkooda. Wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in maaragtay xaaladda dalka aad maaragtay u qasan tahay xagga caafimaadka bilihii lasoo dhaafay. Cudurro badan ay ka dilaaceen oo la kala garan waayay, qaarkoodna hadda la helay. Marka hal ilaaliyo maaragtay dadka Kongoleska ayaan la salaamin, lacagta Kongoleska ayaan la tirin, maaragtay agtooda ayaan loo dhowaan, yaa lagu neefsan iyo isku soo dhowaan. Cudur halis weeye cudurkan qofka waxa uu intuu ku soo dhowaado khatar baa ku sugan tahay. Hal ilaaliyo. 50 people have died just hours after showing symptoms for a mystery illness in the Congo. According to the World Health Organization, the outbreak began after 3 children ate a bat. Since then, 419 cases have been recorded, and all those who died did so 48 hours after developing symptoms. The CDC have since told thedailymail.com that international risk of the disease is low.